بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد السلام إن شاء الله وحرنا maanta in aan isdul taagna laba qodob oo muhiim iyo asaas u ah tarbiyada caruurta. qodob waxa waaye ilmaha ina mataqaana ula dhaqantid sidoo qof adig oo kale ah. يعني مثلا ilmaha dareen buu leeyahay, ihsaas, yani wuu xanaaqaya, waxba dhibaya, wuu xishoonaya, wuu cabsanaya, yani ihsaas dareemada aad leedahay oo dhan buu leeyahay. tan labaad waxa waaye ilmaha marka lagu leeyahay waxa jeclaataa jacayl shuruud la'aan ah. waxa laga wadaa مثلا inaad dhigid ilmahaaga yani marka ciyaartid ma ku jecli, marka fadhidid oo tahay ilmo muhadaba oo meel fadhiya oo imaqlaya oo ku jeclahay. yani waxa ilmahaaga waxa kala saaraysa suluuga ilmaha dhibaatada, yani waxa uu sameynaya adiga dhibaatada u aragtid oo aslan aan dhibaatada ahayn. sababtoo ilmaha inuu ciyaaro inuu ordo waxaas dhibaato ma aha, laakiin waa wax annagana dhibaya ka waalid ahaan. marka waxa la rabaa ilmaha marka aan leenahay waxaan ku jeclahay jacayl shuruud la'aan waxa waaye hadii aad ciyaartid iyo hadaa qaylisid iyo hadaa idibtid iyo hadii waxaan raali ku aad samaysid, adiga ilmahayga marka tahay markasta waa ku jeclahay. laakiin waxaan aad sameynaysid ficilkan aad sameynaysid ma jecli. مثلا ilmaha wax buu caayay ama walaalkiis ka yar buu dilay ama darisku foodeeyay, kaas ma jecli tasarrufka. laakiin adiga markasta waxa ta ilmahayga okay. marka maxaa taas oo kale la rabaa ilmihii ina u yeertid, soo fariisisid, dhahdid saas iyo saas iyo saas ma wanaagsana, yani ha sameynin. مثلا marka lagu leeyahay ilmaha wuxuu leeyahay dareen ama ilmaha sida adiga ratid kula dhaqan. hadda adiga kawna ka waalid ahaan hadii inta lagu yeero مثلا shaqada waxa ka sameysay dhibaato, waxa shaqaysa qof shaqeeya tahay, wax dhibaa sameysay, yani waxa sameysay wax aan mudiirkaaga raali gelinaynin. مثلا shaqada ka soo daahday ama awaamirtii laga rabay oo shaqada qawaacideedii ba mid ka mid ah jabisay. marka maxaa haboon oo adig kula fiican shakhsiyadaadana aan dhaawacaynin? waxa fiican inuu mudiirku kuugu yeero xafiiskiisa kadibna ku dhaho maanta shaqadii waa ka soo daahday, maanta awaamirta waa laasimi weyday, saa iyo saa samee. maxaa adig kula xun inuu dadka hortooda kugu qayliyo, kugu dhaho maxaa saa u sameysay, maxaa u soo daahday, hadaad shaqaynaynin hadaad shaqo u baahnayn shaqada isaga tag iyo waxyaabo noocaas. ilmaha marka uu wax sameeyo waa inaad ixtiraamtid oo u yeertid oo dhahid hooyo ama aabe sidaas iyo sidaa iyo sidaas ha sameynin sababtoo asaasay ku xun tahay. laakiin hadda dadka hortiisa walaalihiis guriga ayeediis awowhiis dariskii dadkii dhan jooga qaraabadii qofku soo booqday ay ku dhahay maxaa saa u sameynaysaa, ma ahan inaad saa samaysid, kanaa tahay wax maqlay maysid, shaydaan baa tahay baa mararka qaarkood way ku dhahaan. shaydaan baa tahay way ku dhahaan, acuudu billahi min shaydaan rajiim. ilmaha yarka yani subxaan allah shaydaan ma ahan, marka waa lagu dhahaa. laakiin ilmaha wuu dhib badan yahay. ilmaha markaa dhahay wuu dhib badan yahay wuxuu u arkaya wax kasto adig ku dhiba inuu isaga mas'uul ku yahay, inuu dhib kugu hayo. markaasuu ku dhahaya waa ku dhibay, marmar hooyo waa ku dhibay ama aabbo waa ku dhibay, raalli ah oo isagii baa loom isku sameynaya, wuxuu dhahaya waalidkaas dhib baa ku haysaa iyo daqdi. marka maxaa u baahannahay inaa ilmaha ula dhaqana sida adiga aad jeceshay in lagula dhaqmo kale u yeertid. saa iyo saas bay ku xuntahay, iska daa aabbe ama hooyo saa. yani ilmaha sidee marka wixii xumaa uga fogaanaya, wixii adig kula xumaa see uga fogaanaya? waa inaa wixii wanaagsan ku sameey aad ku dhiirigelisid. saa iyo saa maanta waa ku fiicneed, maanta 5 salaadood baa tukatay, maasha allah tabaaraka allah, maanta waajibaadkaagii mar hore xalisay, yani waxyaabo saas. ilmaha markuu wanaag sameeyo dhan waa ii soo adeegtay, waa mahadsan tahay, sida adiga jecesha in lagula dhaqmo. qof waxa arkaysa ku dhahaya aniga waxaa sameeyay laakiin qofna shukran ima dhihin, qofna maartay wax fiican ba sameysay ima dhihin. kulligan waxaan jecelnahay in maartay waxa sameeyana lagu dhiirigeliyo. saa darteed ba ilmaheena waxa ula dhaqmeynaa sida anaga aan jecelnahay in loola dhaqmo. taas waa qodobka labaad oo ah ilmaha ina mataqaana aad kala saartid, yani aadan ku jeclaanin inuu adiga ku raali geliyo, yani sida aad rabtay inuu kuu noqdo. iyo mataqaana markuu dhibaato kugu sameeyana aad dhahid okay aniga saas sameysay ma ku jecli. way ku dhahaan waalidka qaar jacaylkayga waa kaala noqonaya maanta wixii laga bilaabo kuma jecli. markaas soo ordaya ilmihii ile waalidkiis wuu rabaa, markaas u dhahaya haye iga daa. marka ilmaha u yeer waxa dhahdaa saa iyo saa sameynin.
laakiin ha ku dhihin kuma jecel hadaa saa samaysid. Waxaa kala saaraysaa jacaylka iyo wuxuu ilmaha sameynaya, sababtoo ilmaha yani marka uu arko inaa markuu wax wanaagsan sameynayna la jecel yahay, hadhow marka kaletona la dhahay khalaas adiga wuxun baa maanta samaysa kuma jecli, ilmaha nafsiyan buu damage u gaarayaa, wuxuuna u qaadanaya inaa adiga dhibaateynaysa. taada kale qodob muhiima jira, anaga marar badan waa iska daalanahay. markaa daalanahay maxaa sameynaa? neerfoos ilmihii baa ku kacnaa oo ku qaylina, waa dhibaateynaa. مثلا maanta dhashaqaa jirta, isagana iskuul buu jira, isku mid baa tihiin, isaga wuxuu dareemayaa daal, wuxuu dareemayaa tacab, maskaxdii maanta kasoo shaqaysiinayay, labadiina ma nasashaa u baahan tihiin, laakiin isaga energy baa ku jira, wuxuu rabaa inuu maaragtay ordo oo ciyaaro. Okay, ilmaha u yeer, waxaa dhahdaa shaqada maanta way igu badneed, waa daalinahay, waxaa u baahnaa inaan nasto, ciyaar tartiib u ciyaar, ama marka la ciyaaraysa hadda aa seexano ama aafar, yacni wax kale oo ilmihii caadi uga codso sida adiga jecesha in lagula dhaqmo. marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaan labada qodob ku dhaqano, ilmaheena inaan u jeclaano si shuruud la-aana. markasta waa ilmaheeni, markasta waa jecelnahay, markasta qudwa u nahay, markasta anaga noo baahayeen, markasta anaga wax naga baranayaan, waa masaakiin wallahi ilmaheena. iyo in aan ilmaha ula dhaqano sida anaga jecelnahay in loola dhaqmo. gacanta qabo ilmahaaga sida adiga jeceshahay, ha ku dhex ceebeynin dadka hortooda, ha ku dilin, yani karaamadiisa ha ku damage gareynin, sida adiga aad jeceshahay in lagula dhaqmo, ula dhaqan ilmahaaga. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.